سؤال waxay ku leedahay aan ku weydiinayo ratiga geela lagu daro magac buu leeyahay magacaas muxuu yahay Cabdirashiid Daliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم ونكسن وحنا كعطنا هي هدي الدعوانيسو أنا سبسكرايب صارته أو ماشي هذا الدعوانيس عاد إكل كعسو يا أمها سنتها بقول كيا بقول وحن رباع إن عن صلة دعوانا معنا صلة دعوانا حقيقة وان هو إن أذكر دوتنا مقرنا في الفرع قروح بده وقروح بده ينقرأ ويان marka fiyo ugu horeeya aan rabo in ila daawato fadlan please fadlan ila daawa kula maana fadlan ila daawa waa fiyo ugu horeeya waa fiyogan cawriyo hadii lagu yiraahdo maxad ku riyoon leed naagtiida sax hadii la dhaho riyo waxa kala ku riyoon lahaade marka qaar riyadu inay meel kale kula laga yaabaa naag kale iyo kula laga yaabaa laakiin hadii la dhaho oo la tashanayo la dhahay awad riyoonaysaa riyo de naagteedu waa jawaab fiican garanaysaa laakiin wax kale ka raadinaysaa wax kale ka raadinaysaa ma garan ma naagtaad maxaa ku dhacay naagtiida ku riyoona meeday waa joogtaa kadibna caadi waa markaas meeday kadibna waxa kale barbadha waa khalad marbaada ku naagtan dheer waxa kale naga barbadha waxaan rabaa video kale oo asagana qurux badan waan hubaa inuu qurux badan yahay waa videogan su'aashu waxay ku leedahay aan ku weydiinayo ratiga geela lagu daro magac buu leeyahay magacaas muxuu yahay Cabdirashiid Daliya ratiga geela lagu daro magac buu leeyahay magacaas muxuu yahay ratigaas waa awr ama qabashadiisa waa riti Soomaa ratiga geela lagu daro ama waa barqab awrtu horta way kala baxdaa geel waa kala baxaa geel wax awrtu way kala baxdaa waxay u kala baxdaa riti horoy oo la rarto horoy hadda maqsho waa ratiga la rarto ee caruurta iyo alaabta iyo lagu rarto markii la guurayo geediga la anaga geed baadiyo ku soo kornayna weydiyo waxaas kuna waa barqab oo weligiiba geela lagama riibin lamana rarto lamana laylin weligii waxba lama saarin geela raaca wuu foofaa jiilaalka markay tahay qooq dhigana inta la seeteeyo ama dabarka laga furo baa toomaha lagu sii daayaa ma fahamteen iyo dhulka ilaahay baa iska sii daayaa sanadkii markuu roobku horo ee uu qooqo la dhaho artigii in hebelaha waa qooqay baa la soo qabtaa geela la dhex keenaa geela la raaciyaa kadibna geelu saa ku garanaysaa ilmaha uga dhalaa hadda awrna kor baa laga wada dhaxaa kan rarooyga iyo kan muxuu ahaa baarqabka geela raaca labadaba waa awr laakiin waxaa kala yihiin baarqab iyo rarooy bay kala yihiin kor haddana awr iyo riti baa la kala dhaxaa ama inuu yahay reer burca inuu yahay malaha reer burca aad fana waa garanaysaa Cabdirashiid baa la yidhahdaa Cabdirashiid aan waxaan aqaanaa dibilasha aan aqaanaa waa maxay Cabdirashiid geel raacay maxay tahay awr ah su'aal maxaa loo soo gaabiyaa SYL SYL maxaa loo soo gaabiyaa S horta waa Soomaali L liberation S waxay ahayd SYL Somali Youth Liberation way aniga macnaha sidaan u qaan SYL Somali Youth Liberation waxay ahaan dhalinyaro desaasay ku gaaban tahay SYL oo dadku ma yaqaanaan ma garanaysa dadka waxaa jira Soomaaliya waxa lagu dhigtaa iskuulo Soomaa iskuulada waxa lagu dhigaa taariikhda Soomaaliya Soomaa history Soomaaliya lagu dhigtaa Soomaa ciyaalka yarka way yaqaanaa marta kanoo kale wuxuu la aqoon yahay la yaan ku sheego wuxuu dhashay xilligii kacaanka ama burburkii uu dhashay ma garanaysa kadibna iskuul ma gelin oo iskuul demo jirinba marka taariikhdaas oo kale waxyaaba ugu muhiimsan ee rabay qofka iskuul markuu tago inuu ku barto taariikhda Soomaaliya laakiin hadda dhalinyarada Soomaaliya jooga ma yaqaanaan waxa dhaama kuwa kale ee meelaha kale iskuulada ku soo bartay baa dhaama oo taariikh ahaan iyo history of Soomaaliya markii la dhaxo ku dhaama laakiin kuwa wadankii jooga ma yaqaanaan historyga Soomaaliya waxaad sheegtaa wax mar walba hortaada jooga balse aadan weliga arkayn maayo wax kasta aboosto wax ma arkan magaalada dhan waa okay wax hor jooga ma jiraan wax mar kasta hortaada jooga laakiin aan arkin hortaada ay jooga mar kasta
markasta hortaadu joogaa laakiin markiis malaha waa malakumowd wuu ka horeeyaa mana arkaysid ama waa malakumowd ama waa malkasta wuu ka horeysaa laakiin marka ama waa dabayl hawo ma arkaysid dabayl ma arkaysid waxay ku leedahay markastoo aan qubaysto waan yaraadaa ayaan ahay markastoo aan qubaysto waan yaraadaa ayaan ahay taasoo iska fududa markasta oo aan qabaysto waan yaraadaa taa waan garanayaa xaqiiqada wallahi waan garanayaa mid sheega saabuunta dad ku qabayso waa yaraanaysaa de sabab macnaha maxaa ku yaraynaya sabab buu ku yidhi macnaha maxaa ku yaraynaya sababtu ma una fahminba yacni jawaabta la weydiinayuuna fahamsanayn macnaha waxaan inay hal xiraalo tahay yuuna fahamsanayn baan u malay markasta oo qabaysto waan yaraadaa bay gabadhu tiri marka isagu hal xiraal ahaan uma fahamsana balse waxaa laga yaabaa inuu fahamsan yahay su'aal iska normal oo la weydiinayo marka sababtuu raadinayaa si uu u helo jawaab wax ka cuni kartid laakiin aad cuni karin shay aadan cuni karin laakiin aad wax ka cuni karto shay aadan cuni karin laakiin aad wax ka cuni karto wallahi waxaas waa ma bismillah shay aadan cuni karin laakiin aad wax ka cuni karto ma cuni kartid laakiin waxbaad ka cuni kartaa okay waa weelka aan qiyaasa weelkan macnaha wax lagu cuno asaga ma cuni kartid laakiin waxbaad ka cuni kartaa dee saasaan mana weelasha wax lagu cuno waa mana shay aad wax ka cuni karto laakiin aadan cuni karin weelasha wax lagu cuno waxbaad ka cuni kartaa ama waxbaad ku cuni kartaa laakiin asaga ma cuni kartid wax ka cuni kartid laakiin aad cuni karin automatically meel kale maskaxda ku maqan tahay sababtaasna waxaa waxbarasho la'aanta waa dadka waxba ma bartaan taariikhaha iyo historyga iyo sheekooyinka iyo murtida iyo waxyaabihii soomaalida dhaqanka ahaa oo dhan lama baro waxaa ka mid ah su'aalahan oo kale hal xiraalahan oo kale ka mid ah gogaalaysiga ka mid ah iskuulada lagu bartaa waa af soomaaligii macnaha dhigaalka af soomaaliga iskuulada la rabay lagu akhriyo Soomaaliya ma jiraan waa sababta ay dad badan oo Soomaaliya ka imaado dhalinyaro ah aan af Soomaaliga si fiican ugu garanayn marka qofka waa ima uu jooga beecad fiican oo af Soomaali aad fiican looga hadlo ama waa in uu iskuulka ka akhristaa si ay maaragtay luqadiisa ama af Soomaaliga oo si fiican u fahmo waxaan u hayaa video kale xaqiiqdii videogan anigu horta ma garanayo sababta horta waxaan waa waaqici ma garanaysaa dhalinyaro waa jacana gabdhaha buu aad u khuseeyaa weliba ma garanayo gabdhaha sababta ay macnaha dabada intay u jeediyaan ay usii jeedsanayaan macnaha wax iska aaminsiiyeen ama iska dhadhiciyeen inay raggu baryaha keenaan ama futada keenaan waxa kama helaan kala baryo waaweyn iyo futo waaweyn iyo qarmuun baa loogu tagaa هذا فترة أركيسين إني أكو شرام بلقيه وحبا بريان وحبا فترة لقشة أنا مقلة مقرنة واجه روح المقلة كنا قبلها مركي سكول إمادان كورو حركة جود كيدو وسدا يسدا فرعن دورية وحصا أنت عليه وكسي تاجي مدحها كدمنا ما كلا فيريو أما لبارو بكير بكسر العيا أما وحكسر العيا كلاس بكسر العيا كلاس بيها الوعب سدا وكله هذا واحد سميني يعني معنا قبلها أنا وكله إيه ضد بيش قشران إيه واحد قشن عاجق قشران واحد كذا يعني واحد إلى ينسي كل صناعة أدي أطبق مثلا تبقول كي أبقول فيديو جن فيديو واحد أنت أنا كل مرة واحد كذا